oo kooban oo dadku inta badan inta ujeedadii ay been ka sheegaan oo xaqaa'iq aan ahayn dhaqdhaqaaqii aslan dalka kolkii uu qabtay dhammaantii meeshii goobtii ugu dambaysay boorama ayay ahayd 4 February 28 February waxa shir lagu qabtay oo boorama ku qabanay oo ku aasaasnay taliyihii ciidamada haystay kolkii uu qoraal noo soo diray aan imika gacanta ku hayo qoraalkaas oo odhanaya walaalayaal idinka idin lama aanan dagaalamayn dawlad bay hayd waxaan la dagaalamaynay idinkuna nama idaan dilayn difaac baad ahaydeen wixii hore aan ka bogsanno aan dariiq walaalnimo aan u baydhno annaga ku baaqnay shir in la qabto 28 February waxa lagu qabtay boorama hoteelka Harawa shirkii Tawfiiq la baxay shirka Tawfiiq la baxay oo ahaa wixii ina soo dhex maray in la ilaawo oo xaashi cusub maanta la soo saaro oo la ilaawo wixii dhintay wixii xoolo la kala dhacay cidna aan la isweydiinin laakiin wixii gaadiid la kala hayo ama beero la kala hayo ama daara la kala hayo qofna inaan wixiisa laga qaadanaynin inaynan isu nimaadno oo aynu nidaam dawladeed dhisanno ayaa 28 February oo samaroon kolkaan ka eego hadduu jananaar ay ahaayeen hadday korneyl ahaayeen hadday odayaal ahaayeen cid inaga maqnayd ayna jirin waxa la qabtay shirkii burco ayaa la qabtay ahaa 19 ayaa lagu qabtay waxa ka soo qayb galay 30 oday oo uu hogaaminayo xaaji xagga odayaasha iyo culamaa diinka xaaji Abubakar Sheekh Umar oo hogaaminayo oo kamid yahay xaaji Daahir oo cilmi oo kamid yahay Suldaan Maxamed Nuur Geelle oo kamid yahay xaaji Daawud oo kamid yahay Sheekh Muuse Jaamac oo kamid yahay anigu maanta oo baan idinku weynahay laakiin maalintaana iyaga kii ugu yaraa ayaan kamid ahaa magacii waalidka Sheekh Ali Jawhar baan laakiin ayaan xambaarsanaa xagga siyaasiyiinta General Yusuf Tallan baa kamid ahaa Umar Shimbir baa kamid ahaa Maxamed Maydana kamid ahaa Kaam baa kamid ahaa ma batirin karno waxaynu hormuud lahayn hadduu oday ahaa iyo hadduu siyaasi ahaa wax shirka burca ka maqnaa ma jirin 38 oo qof yaananu ku ahayn kolkii halka shirkii lagu gooyay eragii waa la hayaa cajalad baa lagu hayaa walaalaheen reerka reesha qasaaq ay lahaayeen waan goosanay guddigii boorama ka tagtay baa iyada war erega aynu bedelo aynu habayno oo halka waan goosanay aad ka leedihiin yaynaan oran waan goosanay waan la soo noqonay aynu niraahno Cabdi aw Ismaaciil Cagadable inaamadiisii intuu soo qaaday halka madaxa iga saaray oo yiri maskaxdii dagaaladiiba annaga maskaxdii wax noo dhimay eregaas maanta intii ka dambaysan lagu soconayaa buu walaalkay Sheekh Muuse Allah u naxariisto mataanaanu iyaanu isku ahayn waxa halka lagu gudoonsaday xornimadii 60kii aynu wareejinay ee aan walaalaheen ku biirnay maadaama dalkiiba uu burburay wax alla wax kale inoo muuqdaana aanu jirin dalkuna aanu ka maarmayn dawlad aanu ka maarmayn qabiilna aanu maanta goonidiisa isku bixinaynin inaynu halka ku aasaasno Soomaaliland la soo noqoshadii xornimadeena aan la soo noqonay hadii taasi ay dhacday waxa dhacay dagaaladii sokeeye ayaa dhacay oo ka bilaabay barbar ka bilaabmay burca ka bilaabmay wixii gurmaday waxay ahaayeen reerkaasi weyne ee dhexda joogay in badan kulku dhagiyo jira isku siin waayay odayaashii gobolka awdal ka tirsanaa oo xaaji Abubakar Sheekh Umar inta imkaan soo tiriyay gudoomiye noo ahaa inta aan soo sheegay oo dhan ay ku wada jireen ayaa maxay hayday lagu ballamay inaan tagno Hargeysa oo aanu ka qayb galno dadka beelaha ee dagaalamaya khaasatan burco ku dagaalamaya waanu dhamaynay odayada iyada dhaga gaara loo lahaa tii barbaraad waan dhamaynay halka waxa ka soo baxay oo la yiri 2 sanadood baa asnanta loo qabtay inay dalka joogaan oo xukumaan wixii ka dambeeyay inay xilka iska wareejiyaan muddadiina way dhowdahay aan shir qabanaa la yiri halkeen shirkii ku qabanaa baa la yiri maxaa runta la isku sheego weeyaan burcaha lagu qabtay la yiro waa la diiday barbaraha lagu qabtay la yiro waa xeeb kulul baa la yiri hargeysaha lagu qabtay la yiri ma suuroobaysaa la yiri gabalida agteena lagu qabtay ma suuroobaysaa la yiri waxay ka maarsan weeyday boorama in lagu qabto odayadeenii baana soo jeediyay oo yiri haddii mid walba intaa wax laga keenay haddii aynu heshiinay haddii aynu ku heshiinay isasaamaxnay aan iscafinay aan dawladeena 60kii aan hooyna aan la soo noqon la yiri waxa lagu qabanayaa boorama sidii baana boorama lagu qabtay
walaalayaan waxaan idin ifinayaa aan idin iftiiminayaa shirkii hore ee tawfiiq maalintii la qabtay 150 nin ayaa yimid oo Hargeysa ka yimid oo Sheekh Ibrahim Sheekh Madar u sareeyo waxa la wixii saraakiil asana haydna ay joogaan hal qoryo iyagoona wadanin oo jabhadaheeni ilaa 1500 aan dhignay oo joogaan ilaa tulli ilaa boorama ay joogaan baan shirka tawfiiq baan dib ugu noqday ayaan soo qabanay oo halka boorama aanu keenay waxay maalinta reerkaasi yaqiinsadeen in heshiisku Soomaalilaantu ay daacadii naga tahay dhabna ay naga tahay waayo 150 oday oo Sheekh Ibrahim uu madax u yahay iyo wax la wixii saraakiil asana ma ahayd iyagoon hub wadanin ayay magaalada boorama yimaadeen oo aqalada boorama ay degeen oo aqaladii boorama la dejiyay marka dadka qaar baa yiraahdo waa la naqasbayo waa caynkan iyo la yiraahdo inaga wax walba gacanta ku haysanay inaga wax walba gacanta ku haynay inaga hogaaminaynay shirkii boorama ayaa halka lagu aasaasay waxa lagu dhisay oo lagu doortay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Cabdiraxmaan oo Cali Faarax ayaa lagu doortay cod aqlabiyad ah loogu doortay kaalin weyn baynu ka qaadanay nidaam baa inoo dhismay dawladeed baa inoo dhismay waa ka maanta halka aan ku joogno walaalaheen waan u ducaynaynaa inay yaani maxay ay degaan inay nabadgelyo noqdaan waynu u ducaynaynaa kama xumin inay degaan oo ma doonayno colaad inay noqoto ma doonayno waxaan idin sheegayaa walaalayaal maanta nabadda aynu haysano dal badan oo aan haysanin baa jira horumar wax lagu gaaraa nabad baa wax lagu gaaraa colaad waxba lagu gaaro colaad wax lagu gaaraayo ma jiro annagu odayaal sii socdo ayaanu nahay ciidaanu nabadda u eegayna ayay ahayd jiilkiina cusub ee dambe ayuu ahaa